iminkana waxaan codka siinayaa nin wax badan magaciisa aad maqasheen oo Soomaaliya oo dhan jeceshahay anigu waxaan idhaahdaa kolle geesiga Soomaaliya waa Sakariya Maxamuud Xaaji Cabdi بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogo deegaankan degmada Galdogob oo 40 sano muddo aan la arag 40 sano kaba yara meelihii aan ku soo koray oo dalka Soomaaliya yaryaraantaydii aan ku noolaa iyada iyo magaalada Gaalkacyada waxaan rabaa in la soo tuso geedii aan ku ciyaari jiray iyo motorka biyadooda quraacdii waa weynayd miyaa la jaray quraacdii waa weynayd suuli waa bas aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sidaad noo soo dhaweyseenna waan ku faraxsannahay muxuu ahaa odayaasha dhaqanka culamaadudiinka gabdhaha dhallinyarada carruurta xataa iyo maamulka muxuu ahaa degmadaba mahad badan baan usoo jeedinaynaa mahad ballaaran baan usoo jeedinaynaa waxaan kaloo idinkugu ogaadinayaa idinku mahad celinayaa bacdallaah dadka Soomaaliyeed oo abaaruhu soo qaxiyeen sidaad u soo dhaweyseen oo aan markaan halkaan ka tagno meesha aan tegi doono soo booqan doono aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa arrintaas Soomaaliya oo dhanna waa laga ogyahay ogaada dadkaas sidaa u soo dhaweyseen dadka Soomaalida oo abaaruhu ay muxuu ahay waxyeeleeyeen deegaanka Galdogob jooga warkii xooggiisii waxaa idiin sheegay xildhibaan Warfaa aniga waxaan rabaa keliya inaan idin salaamo warbixintii iyo haddii alla ku roon yahay waxyaalihii la xiriiray howlaha aanu u nimidna habeen hore shalay ayaanu odayaasha isku aragnay magaalada Gaalkacyo in badanoo halkaan fadhida iyo odayaasha kaloo Gaalkacyo ku harayba kulley xogta waa uga socotaan waxa weeye asaaska aanu u nimid waxa weeye inaanu nabadana ka shaqayno dadka Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka abaaruhu ku dhaceen muxuu ahay u kuurgala xaaladooda idinka laftiina idin dhageysano wixii mashaakil oo jira ama biyo ha noqdeen ama baad ha noqdeen ama ammaan ha noqoto asaasku waxa weeye marka dowladda dhexe Soomaaliya ayaanu anagu ka nimid ayada ayaadna ka tirsantihiin qaybaha muhiimka ah oo dalka Soomaaliya iyo dowladda dhexaba mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baa umahadsantihiin waqti kulul baa lagu jiraa hadalkayga ku dheerayn maayo nin hadal badan baana haddaan fakado laysoo celin maayo marka intaasaan ku dheerayaa